السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن فاونديشن أنا ومنى محمد عبدية دمان ولاalaha meelaan joognaba ilaahay hanugu nabad yeelo waxaa inoo socotay qisadii ama sheekadii asli waxay inoo maraysay asli oo markaa habararteed u timid uguna timid yacni asli inay markaan yacni la waaniyo oo wax loo sheego oo dee reerkeeda aysan iska dumin oo ninkeeda ay ka dambayso oo dee uu diiriya familka uu la hadlay oo yiri waxay u baahan tahay aqal cilin bay u baahan tahay sidaa darteed habararteed u timid habararteed laakiin waa habarar ayadiina dee laftirkeedii ninkii xaas kale uu la guursaday oo xoogaa problem ku furan yahay waana habarartii ay hore ula soo joogtay asli habarartii markay timaado caruurteediina way wadataa caruur bay wadataa 3 caruur oo caruurteeda ka mid ah dee habararta idaab nasasho u baahan ma aha qof oo maaragtay asli wax u taraysa laakiin saas ay tahay asli way la hadlaysaa oo waxay leedahay dee asliyey sida isu dhaano ninkan haddaba ordine ninkani adiga hadda cilmi iyo qurux uu kugu raacay oo weyn ma jirto ilaahay baa iska kaasiiyey ila qof ilaahay iska wataa ahayd naaga kuma uusan waayin adduunka waxaad u daba orodidoo maaragtay u qaylisid ma jirto familkiinoo dhan buu maaragtay wax taray adigu wax ku tara noloshaan oo kale aad ku nooshahay cid ku nool ma jirto oo yacni maxaa la dhahaa annagii kaaga soo horeynay Yurub baa maaragtay saan ah oo aan waxba ku haynin adigoo shalad timid oo baadiye ka soo carartay baa ninkan ilaahay iska kaasiiyey waa kaasaa dee maxaa la dhahaa ha noqonin maaragtay baadiyanimay maaragtaa lahayn bay ag joogtaa iyo waxaa hees oo la qaadi jiro la dhihi jiray risiq eebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duunyo siinayo deeqda u dhowaa ilaahay deeq buu kula doonay deeqda maaragtaa deeqdaada gurigaaga joog maxaa kaa maqan adigu waxaad la qaylisid meesha ma yaalaan ya asli taasi caawin mayso laakiin habarartii waxay leedahay waa kaa tegayaayo dhowr maalmood baan soo maqnaanayaa caruurta ii siihay holan gabdho saaxiibada joogaan rabaa inaan lasoo kulmo oo ayaamo lasoo joogo sidii bay asli ku kaxaynaysaa habararteed waxay geynaysaa central stationkii ama maxaa la hoptbaanhofkii meeshii ay habarartii ka tegaysaa aslina caruurtii bay lasoo noqonaysaa iyo wiilkeedii oo supermarket intay uga soo adeegtay dee oo caruurtani wax ay rabeen oo usoo gaday bay ayadoo stress badan iyo ka muuqda dee daalkii iyo dhibkii bay xaafadii kusoo laabanaysaa waa waqti samara marka xaafadda marka waxaa horteeda taagan guriga hortiisa guriga ay degan yihiin asli iyo markaa waa guri 3 maxaa la dhahaa qaybood ah qaybta ugu hooseysa waxaa degan familka guriga iskale qaybta labaadna waxaa degan famil kaloo dhalinyaro ah sida asli iyo diiriyo kale famil yar ah qaybta ugu sareysay iyaga degan yihiin asli iyo maxaa la dhahaa diiriya guriga waxaa ijaaray asli odaygeeda diiriya iyo waxaa ijaaray Linda oo guriga companyga magaciisa ayaa lagu ijaaray maadaama xaafad oo maaragtay qaali uu ku yaalo guriga sidoo kale odaga iyo habarta waa dad waaweyn oo caruurtoodu waa weynaadeen ayeeyo iyo awoowo ah oo caruurta qaarna iskuulada sare dhigta qaarna iskuulada hoose dhigta laakiin famil aad u fiicana familka kaloo yar oo dhalinyarada ayagana oo maxaa la dhahaa asli iyo ka hooseeya waa maxaa la dhahaa famil ayagana leh cunug yar oo markaa 3 sano aan gaarin iyo ilmo sharma arke asli iyo diiriyo wiilkooda 2 bilood ka weyn marka gabadhaas waxaa la yiraahdaa Alex waxay saaxiib yihiin Sabina ayadana areadaasay degan tahay waa gabar iyadana xaasa oo leh iyadana ilmo saas oo kale aan 3 sano wali buuxin iyo haddo iyadana ay dhashay oo saas oo kale bil ka hor iyo bil iyo xoogaa ka hor wax saas dhashay Sabina marka Alex waa saaxiibo aslina way isbarteen oo asli dadka hadda asxaabta ugu dhow oo Jarmalka ah oo ama xaafadda ay degan tahay way labadaas gabdhood oo aad u xiiseeya
inay wax badan asli ay ka bartaan ama maxaa la dhahaa ay maaragtay saaxiib la noqdaan oo soo dhaweeyaan. Sabiinana waxaa habarar u ah islaanta Margaret ee asli ay maxaa la dhahaa u shaqayn jirtay ayna saaxiibka dhow weli la tahay, macalimadna u eedo luuqadda Jarmalka bartay. sidoo kale Sabiina iyo ninkeeda waa dad badana u taga fasax Masar bay u aadaan, Egypt u aadaan. sidaa darteed way xiiseeyaan dhaqamadaas iyo yacni maxaa la dhahaa maaragtay dhaqankaas dee orientiga ah. marka asli xoogaa dee waxay u arkaan ma aragtay inay tahay qof dee dabcan cultuur kale iyo mentality kale ka timid siiba orientigaas ka timid, ay wax badan ka faa'iidi karaan ama ay ka baran karaan. exotic bay dhahaan, yacni waa qof exotic ah bay u arkaan, marka inay saaxiib la noqdaan way iska jecel yihiin. laakiin problemkeedana way arkayaan siiba maxaa la dhahaa laba odayga iyo islaanta guriga hoose degan oo guriga laga ijaartay waa dad ayagaba adduunyada aada oo maskaxdooda furan tahay oo aan ahayn waxa tubis Dutch loogu yeero oo ah dadka ma aragtay wadanka aan ka bixin oo Yurub iyo wadankooda dhexdiisa kaliya ku ma aragtay socdee aan maskaxda furnayn adduunyada kale aan maxaa la dhahaa u dhuundaloolin. marka waxay jecel yihiin inay bartaan asli iyo diiriye, laakiin diiriye way arkayaan inuu yahay nin maaragtay aanba jooginba badanaa xaafadda oo waqti yar jooga. mararka badanna waxay arkayaan inay qaab farxad leh iyo isu soo dhawaan yacni iyaga laftirkooda ay ka shakiyeen xiriirka ka dhexeeya diiriye iyo Linda, ay aada uga shakiyeen maxaa la dhahaa odaygiyo habarta iyo weliba maxaa la dhahaa gabadhan kale Alex iyo ninkeedaba, waayo asli saa ulama qoslo ma arkaan asli iyo diiriyo wada socda, asli iyo diiriyo wada faraxsan, yacni dad isqabo oo ma arkin oo nolol fiican oo ma arkin oo farxad iyo ku nool. laakiin haddii la arko diiriye oo Linda la socdo waxaa laga dareemaa waaw laba qofooda ma aragtay isku faraxsan oo dee kaale iska arag. marka taa shaki bay ka qaadeen, waxa ka dhexeeya way fahmi la'yihiin familkan sheekada meesha ku jirto oo dhan dee iyaga laftirkooda waxay noqdeen xoogaa maaragta curiosity iska noqdeen. marka badanaa way casumaan, dhowr jeer bay casumeen, laakiin diiriye mar walba wuxuu dhahaa dee waqti maba hayaba, nin la arkana ma aha, markaan waqti hela waa arkayaa u dhahaa. aslina wuu u sheegayo wuxuu ku yiri dadkan ma dhaqan taqaanid mana maaragtay ka gaabso. sidaa darteed asli way gaabsataa, laakiin haddana dee waa qof keligeeda oo dhowr jeer bay intay casumeen bay u timid oo u tagtay oo kafee la soo cabtay oo la fariisatay oo maxaa la dhahaa laakiin su-aalihii baa ku batay oo laftirkeeda xoogaa su-aalaha la weydiiyey ay ka jawaabi weyd, xataa waxay aqoon weyd diiriye ma aragtay meeshu ka shaqeeyo oo waxay tiri kambani buu ka shaqeeyaa, laakiin kambanigu wuxuu qabtay iyo way garan weysay. Linda xataa iyo diiriye waxa ka dhexeeya waa isla shaqeeyaan, waa dad maaragtay kolleeg ah bay tiri, wax kaloo ay ku raacisay way garan weysay. iyo waxay arkeen madluunimadeeda iyo gabadhan yacni inay si wax ka yihiin. sidaa darteed way soo dhaweeyaan, laakiin iyada laftirkeeda lugteeda ay gaabsatay. sidoo kale Alex iyo maxaa la dhahaa Sabiina waxay isku arkaan koorsooyinkay badanaa isku arkayeen, waxay arkaysay nimankoodii oo la socdo kooraskii la imaanaya, caruurtii la wada, waxay wada aadaan maxaa la dhahaa supermarketka iyo shopping ay wada aadaan, banaanka ayagoo biskuleetiyaal maaragtay caruurtooda gadaal ku xirtay oo maxaa la dhahaa wada aadayo maarkino maxaa la dhahaa baadiyahaas hawo kusoo qaadanaya, ayagoo mar walba ayagoo barbecue wada samaysanaya, dee dad wada faraxsan oo wada nool oo dad nolol ka muuqato iyo farxad iyo qancid ka muuqato bay ula egyihiin dadkan ayna maxaa la dhahaa qaabka dhaqankoodu yahay. asli iyo diiriyana lamaba arkaba. marka asli badanaa way casumaan, kaalana raac kaana yeel, xataa biskuleetigay bareen oo ku qasbeen ay dheheen kaala biskuleetigaan ku barayna anagaa ku barayna. markay gabdhaha kaliya yihiin marka waa iska raacraacda, laakiin markay raggooda la socdaan, laakiin labadan famil waa saaxiib, ragga iyo dumarka iyo isla socdaan, maxaa la dhahaa kafeegooda ay wada cabaan, banaankaas balakoonkay wada fariisan, qoylo qosolkooda iyo dhaqdhaqdooda intaa maqashaa asli
way u yeeraan laakiin ayada way ka yara maxaa la dhahaa gaabsataa waayo dad wada faraxsan adigiyo aan ma aragtay bartiner haysanin keligaa way kugu dhib badanaysaa moogta marka maxaa la dhahaa lugteeday ka reebatay oo xoogaa intay ka gaabsan karto way ka gaabsatay ayagana way dareemeen laakiin haddana way soo jiidaan mar walba oo ma arkinoo waxyaalo badan bay ka baratay labada gabdhood waxyaalo badanay way weydiisay waxyaalo badan bay ka aragtay aysan ayada haysanin nolol ay ku qanacsantahay oo ku faraxsantahay noloshu lacag keliya ma aha farxaddu lacag keliya ma aha aslina way dareentay yacni dad isku dan ah dadkan isqaba waa dad isku dana waa dad iswata waa dad wada faraxsan waa dad wada ma aragtay kaftamaya markay asli u timaado waxay arkaysaa caruurtii iyagiyo nimankiio ma aragtay ama caruurtoodii u qubaynaya ama wax ka bedelaya ama wax siinaya oo ma arkinoo xaaskii ma arkinoo ku dhahaysa lugihii intay kor u taagata dhahaysa waqtigeyga aniga waa aan waqtiga qaadan lahaa isaga cunugiisa la boodboodaya waxay arkaysaa ma arkinoo ayadii labadoodiiyo wada fadhiya oo uu isagii usoo adeegayo waxyaalahaasoo dhan yacni isku kalsooni isku qanacsanaan ma aha nin la khasbayo oo laleeyahay waryaa oo la tusaayo iyada yacni ninkayga wuxuu ii qabanayo arag ma ahani dad isku qanacsan nin isku kalsoon inuu dad kale wax u keeno usoo adeega aanan waxba u arkin waxyaalahaasoo dhan ay asla arkaysaa cadaankao dhan saas ma wada yihiin ma taqaano laga yaaba inaysa wada ahayn laakiin calaa kulli xaal familadan qancidda ay isku qanacsan yihiin baa asli indheheeda ku dhacayaan taasina qalbigeeda waxay gaarsiinaysaa dee ma aragta maxaa la dhahaa defect ah in iyada aysan noloshaas haysanin marka gabdhihii waxay ku leeyihiin iyo markay kaa tagaan waa naloo sheegayo diiriyaana soo wacayo waa naloo sheegay inaa maxaa la dhahaa idinla joogaan qayladana waa maqalnaa dee caruurta aad bay u qaylo badan yihiin markay kaa tagaan dadka maxaa la dhahaa martida ah baynu is arki doonaa bay leeyihiin markay martidii tagaan bay maalmaha ka bida is arkayaan labadii gabdhood dhexday gashanaya waxay leeyihin asliyey stress badan baa ku haya depression baa ku haya waxaad u baahan tahay rehabilitation baa u baahan tahay marka maxaa la dhahaa waxay u keenayaan flyer ama prospective ay u keenayaan waxay leeyihiin oo jasiirad ku taala jarmalka oo suult la dhaho suult baa waxaa laleeyahay halkaa aad maxaa la dhahaa takhtarkaaga kasoo samayso waxaa ku yaala cour house oo maaragta kindamuta kuwa wax la yiraahdo meeshaasaa tegaysaa yacni problemkaaga oo dhan ma aragtay kor iyo dareen ahaanba waxaad helaysaa ma aragtay caawimaad baa ka helaysaa adiga isu soo baranaysid naftaada waqti usoo qaado maxaa la dhahaa ilmahaaga iyo adiga waqti aad keligiin isku noqotaan waqti aad naftaada u heshid waqti waxa aad rabtid aad soo ogaatid waqti aad ma aragtay adi isu qaatid weligaa noloshaada ma helin marka orod baa laleeyahay aad takhtarkana kasoo qoro sidii bay asli yeelaysaa diiriyana way u sheegaysaa diiriya marka wuu ka xanaaqayaa maalintaa marka liindaa la joogtay wuxuu leeyahay maxaa marka hore iigu sheegay liindaa waxay leedahay hadda kor anaa kuu sheegay inay gabadhaan u baahan tahay waxaani ha aadee dhaaf hasoo ma aragtay nafteeda ha soo nasato sidii bay asli marka ku baxaysaa ay ku aadaysaa jasiiradii loogu talagalay rehabilitationka ama maxaa la dhahaa kuurka mutakinda kuurka oo ay markaa ayada nafteeda ugu baahnayd inay kusoo nasato intaasaan caawa noogu joojinaya insha allah iyo waxa ay kala kulmi doonto markay kuurkaas tagto mutakinda kuurkaas markay tagto insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheerka iyo like